waxa lagu magacaabaa aabbaha ambiyada maadaama isaga wixii ka dambeeyay ay ka soo faracmeen wuxuu ahaa qof dhowrsan oo Alle uu jecel yahay waxaana ku adadkaa diinta wuxuu dagaal iyo dadaal dheer u galay si qoomkiisa ugu yeedhi lahaa diinta una badbaadin lahaa ciqaabta Alle ka sheekanta qisidiisuna waxa ku soo aroortay Quraanka waxaanu la kulmay ciqaab aad u badan oo nabiyada intooda kale aan la kulmin haddaba nabigaasi yuha qoomkii loo soo dirana iyay ahaayeen waxaa soo dhan barnaamijkeena maanta ayaan kaga jawaabi doonaa sidoo soo wariyay ibn Kathir abtirsiga nabi Ibrahim wuxuu noqonayaa Ibrahim ibn Azar ibn Nahura ibn Zajura ibn Ra'uwa ibn Fajir ibn Abir ibn Shalih ibn Arfan Shaqda ibn Sam ibn Nuh alayhi salam nabi Ibrahim alayhi salam wuxuu dhashay laba wiil oo la kala dhaho Haran iyo Nahura Haran uu ka weynaa Ibrahim Nahurana uu ka yaraa waa u dhaxayay labadooda Haranna wuxuu dhalay nabi Lut alayhi salam nabi Ibrahim wuxuu dhashay aabihi Azar oo 7 sano jir ah waxaana ku dhashay deegaankii Baabil deegaankan uu ku dhashay Ibrahim dadkoodu waxay caabudi jireen xidigaha iyo meerayaasha waxaana sameystaan aslaam si ay ugu dhawaadaan ilaahooda way si aaminsanaayeen nabi Ibrahim aabihi Azar wuxuu lahaa kaligii sanan qofkii ugu horeeyay uu dacwadu leeyahay wuxuu ahaa aabihi Azar waxaana ku yiri abo waxaan waxba ku tirin aan waxna maqleen waxna arkeen maxaad ka caabudaysaa markastana saas ayuu aabihi ku oran jiray markastana isaga iyo aabihi dood ayaa dhaxmari jirtay intaana dabadal isla gaadhinba nabi Ibrahim aabihi wuxuu la dhaqmi jiray asluub wacan laakiin aabihi waa ka diiday waana u deeriyay laakiin nabi Ibrahim aabihi Azar saas uga mu harin Azar markii arkay wiilkiisu sida uu caayay islaamtiisa iyo waxyaabaha ku sheegayo waa waxaanaqay waan u adkeysan kar waaye waxaanu Azar ku dhahay hadii aad joojin weydo waxaad wadid dhagaxyaan ku dili doona ama dhulkan degannahay ayaan ka deerin doonaa nabi Ibrahim alayhi salam waxaanu ka hadlayo muhayd wax soo gaaliftay ee wuxuu waxyi Alle nabi Ibrahim alayhi salam markii uu ku daalay aabihi waxa ku dhahay dabadgaliyo korka ka aato oo ku dhicin doona Allana wuu naxariistaanige maalma kamid ah ayuu nabi Ibrahim uu yimi qoomkiisii oo sujuudsan aslaamtoodii waxaanu ku dhahay waxay aslaantan aad sujuudasaan waxaana dhahay waxa ka dhaxalnay aabayaasheen saas aynu cabudnanaguna nabi Ibrahim oo dhiiran ayaa ku dhahay idinka iyo aabayaashiinba waxaad ku sugantiin baadi iyo khasaare waxaanu ku dhahay Alla waa ka abuuray dhulka iyo samada waxaad caabudaysaan waa dhagaxyo aad ku sameysteen gacmihiina reerka nabi Ibrahim ka dhashay waxay lahaayeen ciid ay sanadkiiba u dabaaldegaan kadib maalin iyaga dabaaldegi ku maqan nabi Ibrahim go'aansaday inuu asaanta gebigoodaba burburiyo dibakana ay ku soo qaatay faash dib aslaantii oo dhanna kurta ayuu ka wajaray kadib faashtii wuxuu gacanta ka saaray ama garabka u sooray kii ugu weynaa ee aslaamta kadib qoomkiisii markay soo laabteen kadib waxa arkeen aslaamtoodii oo dhulku yaala kadib waxay isweydiiyeen miyay lagu soo duulay meesha mise dagaal ba ka dhacay markiiba dad ka tirsan qoomka ayaa dhahay waxa maqalnay wiil yar oo ceebanaya aslaamteena waxaana dhahaa Ibrahim isaga kaliya ayaa maanta ka maqnaa dabaaldega kadib koox araysan ayaa loo diray nabi Ibrahim alayhi salam waana soo qabteen waxaana ku dhaheen madiga ayaa dilay aslaamteedii kadib nabi Ibrahim alayhi salam ayaa ku jawaabay weydii ka weyn haduu awood leeyahay waxuu inta uu sii raacay isaga ayaa laayay intii kalena jawaabtii uu bixiyay nabi Ibrahim alayhi salam ayaa uga xanaajisay qoomkiisii kadib way tashteen waxaana soo saareen go'aankaas oo ah in halka mid lagu istaajin karo Ibrahim uu yahay in inta dab weyn la shido lagu rido kadib oo halkaas ku shufeelo kuna dhinta halkaas kadib qof kaste oo tuulada joogay ama deegaankoodii joogay waxa la amray inuu soo qaado xaabo inta islaantii jiiftay qof kale ayuu dirsanayay inuu soo qaado xaabo waxaan la sheegaa dabkii markii la shiday kuleelkiis awgeed shibirta dul maraysa iyadoo gubatay in ku soo dhacaysay dabka kadib markii nabi Ibrahim lagu xiray xarig si loogu tuuro dabka maadaama aan loo dhawaan karin kuleelka dartiis markii lagu tuuray dabka wuxuu nabi Ibrahim dhahay Allah ayaa ugu filan sida ku xusan aayadda 69 ee suuratul anbiya Allah ayaa dabkii amray in Ibrahim uu noqdo mid qabow oo nabadgelyo ah kadib sidaas ayuu kaga badbaadiyay dhagartii ay wadeen gaaladii arintii nabi Ibrahim alayhi salam ayaa faaftay waxaana gaadhay boqol la oran jiray Namrud ibn Kancaan waxaanu ka talin jiray dhul aad u weyn halka uu degnaa Ibrahim iyo qoomkiisuna uu ka talin jiray waxaanu sheegtay ilaahnimo waxaanu ahaa boqor aad u dulmi badan kadib Namrud ayaa dhahay halay keeno Ibrahim markii loo keenay ayuu ku dhahay Ibrahimow ma ilaahna aniga hayn ayaad sheeganaysaa markaas ayuu Ibrahim ku dhahay ha ilaahay waa kan wax nooleeya waxna dila kadib Namrud ayaa dhahay amba wax weyn dila waa nooleeya kadib waxa la sheegaa inuu jeel ka saaray labadii nin ayuu mid dilay midna uu sii daayay kadib waxa dhahay waanigaas oo midna waan dilay midna waan sii daayay kadib Ibrahim markii arkeen ninkan joogeen ayuu ku dhahay alla qoraxda wuxuu ka soo saaraa bari ee adigu galbeed ka soo saar halkaas ay ku ceeboobay oo ku fashilmay boqorkii Namrud la oran jiray ee dulmiga badnaa muddo aad u badan ay qoomkiisii dacwada ka dhaxwaday laakiin cidna ma ruben ilaa in yarina haw naxariista mooyaane intii uu joogay Ciraaq waxa rumaysay xaaskiisii Saara iyo wiilka adeerka u ahaa
ee nabi luud calayhi salaam. nabi ibraahim markii ay qoomkiisu raaci waayeen wuxuu iskaga jirooday dhulkiisii baabil waxaana u aaday dhulka barakaysan ee falastiin. halkaas ayuu degay nabi ibraahim iyo xaaskiisii. luudna meel aan ka fogeyn ayuu aaday. muddo kadibna halkii luud joogay ayaa nabi looga dhigay. nabi ibraahimma falastiin ayuu ka dhex waday dacwaddii. muddo kadibna waxay u safreen waddanka masar waxaana halkaas ku qabsatay arrin kale oo adag. waxaana loo sheegay boqor ka talin jiray masar inuu yahay mid dadka qafaasha oo dila dumarkana afduubta kadibna ku xadgudba. kadib ciidamadii boqorka ayaa soo qabtay nabi ibraahim iyo xaaskiisii. kadib nabi ibraahim ayay weydiiyeen gabadhan cindi tahay waxaanu ku jawaabay waa walaashay. kadib ayaa boqorkii loo keenay saara. kadib ayuu boqorkii isku dayay inuu ku xadgudbo saara. markii saa gacantiisa u soo taagay ayay gacantii qalashay. kadib saara ayuu ku dhahay ilaahagay weydii inuu gacanta ii shaafiyo waxaanan ku siin doonaa gabadh kuu shaqaysa waanan ku sii deynayaa. kadib alle ayaa gacantiisii sidiisii ugu soo celiyay boqorkii waxaanuu saare siiyey gabadhii uu sheegayay gabadhaas oo la odhan jiray haajara. kadibna waxay dib ugu soo laabteen falastiin ibraahim. nabi ibraahim calayhi salaam markan aad ayuu weynaa oo da'diisu 75 sano ayay maraysay carruurna weli muu dhalin. kadib xaaskiisii saara ayaa ku tiri gabadhan haajara ayaan ku siiyey iyada guurso si awlaad alla kaaga siiyo maadaaman anigu duqoobay. kadib nabi ibraahim calayhi salaam sidii ayuu sameeyey waxaanuu guursaday haajara. kadib haajara waxa u dhashay wiilkaasoo la odhan jiray ismaaciil calayhi salaam. alla subxaanahu wa tacaala ayaa mar kale u waxyooday nabi ibraahim calayhi salaam waxaanu ku dhahay waxaan kugu bishaaranay in xaaskaaga weyn ee saara ay ku dhali doonto wiilkaasoo la dhaho isxaaq calayhi salaam. allana ugu barakeyn doonaa labadaa wiil waxaanu dhabarkooda labada wiil ka soo saari doonaa nebiyo kale oo badan. markii ay dhashay haajari waxa aad u maseertay xaaskii weynaa waxaanu markaas nabi ibraahim go'aansaday inuu reerka yar u raro magaalada barakaysan ee maka. kadib markii uu geeyey magaaladii barakaysaneed ee maka wuxuu halkaas uga tegey xaaskiisii haajara iyo wiilkiisii yaraa ee ismaaciil waxaanu uga tegay in yaroo timir ah iyo in yaroo biyo ah. kadib nabi ibraahim ayaa ku dhacay waxaanu laabanaya magaaladii shaam. kadib ayaa haajara ku dhahday mawaadigan cidlada ah ayaad nagaga tegaysaa. kadib nabi ibraahim cabbaar ayuu ka aamusnay. markaas ayaa haajara ku tiri maarin xagga alle kaaga timi baa oo lagaaga soo amray. markaas ayuu ku yidhi haa. markaas ayay ku tiri iska tag alla nama dayacayee. nabi ibraahim calayhi salaam markuu marayay albaabka maka ee laga soo baxo ayuu alle subxaanahu wa tacaala gacmaha sare ugu taagay waxaanu ku dhahay rabbiyow waxaan duuriyadaydii dejiyey waadii oo wax baad iyo biyaba lahayn meeshaas u dhow gurigaaga barakaysan ee rabbiyow u yeel dad la dega oo weheliya midhana ku arsaaq waxay mudan yihiin inay kuu shukri naqaane. kadib wuxuu jeestay dhulkii uu ka yimi. alla subxaanahu wa tacaala ducadii nabi ibraahim ka aqbalay waxaanu u barakeeyey dhulkii cidladaha. muddo kadib nabi ibraahim calayhi salaam waxaa loo bushaareeyey in xaaskiisa weyn dhali doonto wiilkaasoo lagu magacaabo isxaaq calayhi salaam. nabi ibraahim calayhi salaam markasta wuxuu soo booqan jiray reerkiisii yaalay maka si uu soo eego xaalkeedu. nabi ibraahim calayhi salaam markii weynaaday wiilkiisa ismaaciil ayuu alla amray inuu gowraco wiilkiisa. kadib isagoo amarkii alla fulinaya ayuu wiilkiisii isku dayay inuu gowraco. markii qoorta ka saaray mindida ayuu alla subxaanahu wa tacaala ugu bedelay wiilkiisii wan. kadib saas ayuu ku gowracay wankii weynaa. ibnu cabbaas radiyallahu canhu alla ka raali noqdee ayaa yidhi nabi ibraahim ayaa tegay maka kadib isagii wiilkiisii ayaa dhisay kacbada. kadib waxuu yimid jibriil oo waxuu baray sida loo guto xajka. kadib nabi ibraahim calayhi salaam ayaa qoomkiisii u jeediyey khudbad waxaanu ku dhahay alla subxaanahu wa tacaala wuxuu lagu waajib yeelay xajkaas oo soconaya ilaa maanta qiyaame. alla subxaanahu wa tacaala wuxuu nagu yeelay waajib qof kasta xajku wuxuu ku noqon doonaa waajib waa midkii awoodee. kadib nabi ibraahim calayhi salaam wuxuu ku soo laabtay magaaladiisii muddo yar kadibna waxa uu timi geeridii. kadib wuxuu isku yeedhay carruurtiisii iyo kuwa ay sii dhaleen si ula dardaarmo. kadib wuxuu ku dhahay carruurtaydii hadhamanina inakoon muslimiin ahayn. kadib waa uu geeriyooday nabi ibraahim calayhi salaam isagoo alla raalli ka yahay waxaanu ku aasan yahay dhulka falastiin. halkaas ayay ku egtay qisadii iyo taariikhdii nabi ibraahim calayhi salaam. intaas ayuu maanta ku egaya barnaamijkeenni inta ku kulmana barnaamijkan barnaamij la mid ah waxaan naga tegnaa sidaas wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. وحي من القصص التي دلت على الله الجليل قصص تجلت حبكة تالله ليس لها مثيل تالله ليس لها مثيل وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل